السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكسا وردو وصل كعي لايف صار نقضي مركات مي حالة فيسبوك كجرت سيدي اسكو بدي الشيء سيدي وحول تهاي سيدي فول حمد ونقطي ما وحول عليك النقط ونقف والدريئة وموادن وحلال كلش ومسلم والضمير لي ما وحول أدرق عليك أنت والله بالله تلا مقرع عن حتى والله هذا يدي سلام صاحبي يلا مركو وركسود وهذا برتي يقال كلها فيسبوك وصاحبكي بوسكو والله تربط والله ويلكم يستا سفي عم فهمك marka heestan laga soo tago saaxiibayaal oo badankiin aan fahamsanahay inaad hurdaysaan oo waqti hore ay tahay weligay saacadaan live soo noqon laakiin wallahi alcadiim waxa uu soo noqday damiirkayga qofeed ayaa ii saamix waayay wixii oo kaftanka ahaa oo baashaalka ahaa inay maalinta isku rogaan cudurkii bahalgaleenkii masaska 9koodii wixii ka dhacay Soomaaliya ee adduunka dhan koolan uu noqday ee dad aanan salaami karin adduunka wax la qaybsan karin dhalinta jaal facil ah oo asaageena ahna maanta aan la hadli karin waxaan u soo fadhiistay halkan idinkan waxaan ka jeclaysan lahayn videogan la wadaagtaan saaxiibadiina kale si ay u suurto gasho in hadhow markay ay soo kacaan later ay daawadaan aniga Cabduqaadir boos ahaan waxaan ahay qof ay ka adag calashaan ka adag yihiin dadkiisa qof dhowraayo ama ka hortagaya sooca iyo kala saarida kala qoqobka Soomaaliya qof raba in dadkiisa iyo diintiisa uu ku faano oo raba in Soomaali oo midowda kaliya ayaa iga dagaysa aniga halkaaba wax ii taagi yihiin halkaas waxa kaliya iga dajin karana waa idinkoo midowdiin midowga Soomaali hadaan cabo waa iga dagayaan laakiin qabiil mid kale intii istaagay mar rabo diyaar u nihi waxaan rabaa marka hore waxyaabaha baashaalka iska soo qoraayo qoraalka waa marna aan muuqaalkii halkan la imaan ina idinka raali geliyo waxaan marka jeclaystana horta ani waa isdiibe haddii sheekada hawii daarood saan u maraysa xaaladda Facebook ay qasan tahay ay dad yar ku dheeleen arrintan aniga waxaan rabaa inaan shacabkayga dhaho waa isdiibay mar dambe waxaa igu wallaahiya oo igu bilaahiya oo igu tallaahiya inaan qoraal dambo ama video daba arrintan uga hadlay aysan dhici doonin video waa ka hadli karaa laakiin arin wanaagsan oo wax taris umada inaan idin la wadaago laakiin qoraal dawlad Soomaaliyeed midna aan kala qaadno qoraalka dawladda waxyaabaha wanaag ay qabatay oo dhaliil ah waa la soo qori karaa waxyaabaha dawladda ku xunta waa la soo qori karaa laakiin shakhsi damo target ah iyo cid dambo la target iyo meeshan aniga shacabkayga oo aan misanahay in aan taladiina ku shaqeeyo waxaan jeclaystay wax marka laga soo tago kaftanka sportska oo ka baxay Universal TV marka laga reebo in bulshadeeda aan la wadaago wixii wanaaga maceeba wixii kaftana caadi ah oo jacayl iyo arimahaas laakiin go'aankayga waxaan dib u dhigay inta qalalaasahan ee hadda foolxumada ah ee hawii daarood iyo filmaantan aan loo joogin oo waalidiintana ka shalay waxaas inaga intee joognaa aqligeena yuusan taaban daarood iyo hawii aniga saacadan laga bilaabo waxa igu wallaahi igu bilaahi igu tallah hadii sheekada hawii daarood si socoto aniga hawii mihi aniga Cabduqaadir Soomaali ali dhaha Cabduqaadir Soomaali ma salaam Cabduqaadir Soomaali awogeen Afrika waa Cabduqaadir Soomaali Afrika ali dhaha bini aadam dabo oo ku taageeray xumaana mana dhici jirin haddana ma dhicis waxaan idinka raali gelinayaa waxaan ka socdo Facebook inaad idinka share gareynaha inaad idinka comment ka bixinaha inaad idinka wax weyn ka dhiginaha xumaana soo socoto aniga waxaan arko waa ark waxa soo socdo dad shalay farmaajo amaanay oo maanta caynay dad kuwa shalay caynay oo maanta ama sheekada waa isdaba qastay aniga walaalahay tihiin friendskayga tihiin maraba ina sharafteedu wax yeelayo
haddii in yar oo idin ka mida qalad ii fahantana waxaan leeyahay raalli ahaaw ma jecli qoqobka soomaaliya ma jecli dhibaatada soomaaliya ma jecli inaan bog cusub oo taariikhda adduunka hadda socda oo 2017 lagu jiro in soomaaliya lagu qoro bogga qabiilada mar kale oo haddan ay u muuqato inay kasii baxayso ma rabo inaan ka mid noqdo dhallinyaradii u horseeday xumaantaas aniga ma rabo inaan idinku dheeraado waxaana walaalahay soomaaliya idinka codsan lahaa arrintan way soo jiitamaysay labadan beri ugu dambeysana talana waxaan rabaa inaan dhalinta soomaaliyeed aan siiyo siiba kuwa beesha hawiyow walaalahayaa tihiin ninkan cusub ee farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu markhaati iiga yahay inuusan qabiil aqoonin ee ilmihiina yaryarow yaan nii laga dhigin nin xun farmaajo 4 beriyo joogaahi maalintaad wax aragtaan xataa xasan sheekh oo hawiya qalad uu samayn jiray iyo sheekh shariif ninkan waxa ilaahay igu ogyahay inuusan qabiil garanaynin qabiil ma yaqaano inuu dalkan qabiil ku dhaqana diyaar uma hadduu qabiil yaqaana isaga idsigiisa shakhsiyadiisa hoos ugu jiri kartaa laakiin dalkan inuu ku hogaamiyo qabiil maxamed cabdullaahi farmaajo diyaar uma aha micnaheeda maaha inuu farmaajo lacag isiiyo laakiin dalkayga aniga dadkayga iyo diinteeda iyo qadiyadda aan aaminsanahay ayaa lacag isiisay taasaan biisha aniga wallaahi farmaajo codkiisana ma maqlin cid u shaqaysana saaxiib lamihi laakiin taariikh xumo in laga dhaxlo oo taariikh xumo soomaaliya aan anigu ku hogaamiyey dad kale ayaan diidana ma fahamteen waxaan meesha usoo fariisay subax alasay anigoo shaah cabin oo min subax ay ii tahay in beesha hawiye oo aan ka dhashay inaan uga digo dhallinyaradooda in farmaajo mara kale loo huwiyo iyaguna ay ku raacaan ayaan intaan shaxla dhanka jiifan waaye waa jiifteen biliis and biliis hawiye aan ka dhashay aniga waxaan u sheegaa ceeb maa dadkayga waa la hadli karaa aniga hawiyow yaan hadda bog cusub aan galna taariikhda 91 dowladda dumisayna lihine mar kale waxaan idiin sheegaa yaan 20 sano ciddi ka yar horta arrintan qaadanaya samaanin 20 sano ka weyn wax garad ah ama qurbahan soo galo la soo rafaadiyay waxas ma qaadanayo waxaan idiin sheegaa taladaas iga qaata yaan niilo hogaamin mucaaradada Facebook waxaan ku arkay rag aan qaraabanahay oo ku bata Facebook oo farmaajo qabiilista baq aniga farmaajo ii ka soo taga dalkan farmaajona ma laha oo qaas uma laha anna qaas uma liid umadu ka dhaxeeya farmaajo iyo adigana seema ka tihiin dalkan isisi xilqaan isisi mas'uuliyad in dalkan adiga hadaa burburisid uu wada jabay yurubtan awjeed miraayada ah hal qof haduu laax ku tuur dadka dhan ku tuurayaan laakiin adi haddaad mas-uuliyad issaartid dalkaana mas-uuliyada kaa saaran taas ogow sida aad ugu dadaashid shakhsiyadaad inaad qubaysatid oo cadaysatid oo isnidaamisid dalkaagana waad ugu dadaashaa inaad nidaamisid dalku maa wax loo qubayn karee bulshada inaad wanaag la wadaagtaan waxaan kaloo u mahad celin lahaa ragga Facebook miisaanka ku leh ee wanaag ka shaqeeyay oo Salmaan Jamaal ka mid yahay inaan halkan ka dhaho hambalyo iyo rag kaleba hadday jiraan rag farmaajo caynayana dabcan shalayna way cayn jireen madaxweyne ka horreeyay idinkaa qaldan oo markaa taageeri jiray idinkaa shalay dhihi jiray markii firi xaqdarrada idin haysata ma taqaanaan markaa run ka hadlo waay shalay markii xasan sheekh iyo qabiilku ka dhashay lafuu ka dhashay halaal loo kala qaadayo waa sacbinayseen ma beenartiin waa sacbinayseen shalay anigu kama jirin dadka sacbinaya maanta farmaajo la sheegay qabiila ka dhigteen idinka shacabku qaladkiina qaata farmaajo haddii wax laga sheegay qabiil idinkaa u bedelay laakiin qof kaloo hadda aan arkay oo u bedelay qabiil ma jirto qabiil ka hadlaya arrintaa markaa soo xogaansaday laakiin shalay xasan sheekh markii la kursiga wacaaslu fariisi cali gaafo fariisi bakar gaawo fariisi cabdi macallo fariisi cabdiraxmaan saleymaani absugu fariisi idinka waa sacbinaysay shab run baa la sheegaa dheesin maxamed wardi abshir daari calasow la hadala ay u tiri daari calasow aniga saaxiib dhowna ma lihin mid fogna ma lihin arrinteena aniga daari calasowna hadda waa dhammaatay ma raba inaan shakhsiyadiisa taargado laakiin daari calasow asiga markaa kasoo hadal qaado walaalkayow shalay markuu xasan sheekh ka sheegaya wax uu dhahayay cali gaafa saan kuraasta ku fariisteen hal qof oo ka mid qaldan daari calasow kasoo qor ma arkin ani oo dhahaya qabiiliista tahay ama saana tahay kulligii waa aniga saaxiibkay ma aha isaga ma fahamteen laakiin runta lagama galbado shalay markuu saas dhahayay idinka dhan waa u sacbinayseen ama mareexaan noqo ama majartan noqo ama habargidur noqo ama xawaado noqo ama mursado noqo
ما فهمتين ابقى دلكو كفريس مكو داي واربتين لكن ما انت فرماجو عاي وكسو هرجستين اذيك ما حق دراه مسا ساي حق دراه قفنا الله مهي اللي قدام قلام موت تاس ارنتاس مشان كو خير مرك شلay waxa u sacabtu meesina maanta aniga idin xumaadalay idin kale idin xumaadeen laakiin shalay ogaado dad khaas iyo beel khaas lagu dulmanay social media laga caynay haddana hadii farmaajo wax laga sheego waa hadii arintan waxaan jeclaysan lahaa haddaad ka wada aamustaan ka warrama oo qof markii la ka soo wada rojeystaan oo noqotaan ummad midaysan shalay maxaan laga heli waayay inaad dhahdaan war xasan sheekh waa madaxweyne abgaal maxaa ka rabtiin ma jirto waa isla maxaa ka rabtiin ma jirin shi baa la wadaha shalay tubada waa idin waa dhuuqaysiino laakiin maanta waa idin xumaad qaraar waa aniga marka labada marba waa ka gubanaya aniga labada marba way saameynaysaa qaran ayaa ideeqa aniga arintaas waa khaas dada message soo diray dhahay Cabdimaalik Muuse Coldoon ala ku tahay saana ku tahay baba oo ka soo horjeeda xargiisa aniga walaalkii waa kama soo horjeedi waxaad kala saartaa runta iyo waxa kala saartaa iyo ka xumaashaha waa labo aniga waa ka xumahay waa walaalkii xorriyad Allah siiyo xasbulay carur bulay waalidulay ma jeclaysanay kuwaas la qaybsanaa xanuunka laakiin waxa ogaataa hadda aniga dalka Finland ku noolahay haddaan Afghanistan aado sideen noqonayaan Finland shakiya imaanay sooba taas ayaan rabaa inaad wax ku dareentaan haddaad Mareykan joogtay Sweden ama qurbo kala joogtay Afghanistan daad ku dareen baa galay umada la nooshahay airport Finland lagu sugayo yani maxaa Afghanistan ka doonta hadda war ka soo doodoon waa xiranaaba laakiin Afghanistan waa aadi karaa waa soo laaba karaa laakiin shakiya imaanay hadda laakiin video Afghanistan ku amaanayo filmaadkeeno dadka aan la noolahay ma jeclaysanayaan arintan oo Afghanistan waxa uu talagalay dad baa si kale cilmiyan wax u fahmaa taas uu talagalay waxa idin sheegi lahaa oo dardaaran idin sii lahaa dhalinyarooy inaad ka waantowdaan waxan qabiilka ah way aqalku waxay isku bedel rabtaana kuwi oo indhaha soo xiranay aniga ana hawiya ana daarada adoo waa dhamaanay laakiin magaca ka haray taariikhuma ka haraysa boga laga qoraya aniga waxaan diyaar waa isdhiibay ma jirto xabsiga ana soo xiray waa soo dhiibay iga raali ahaada intaasaan rabaa intiina online ka ina la wadaagtiin kuwiina jiifa Soomaaliya waa mid inaga waxaan rabnaa inaan Kenya la tartarno Ethiopia la tartarno Mareykan la tartarno Britain la tartarno laakiin abgaal iyo Mareykan iyo qabiil iyo majaabir gidid iyo majartaan iyo sheekhaal iyo ortable iyo kulama tartan karno aan qaran noqono aan daacad noqono aan madaxweyne imaado waa qasab 4 sano ma dood ma ku jiri karna inaan iska taageerno waaba haddaan farmaajo maanta 4 sano ma diyaar u noqonaa inaan waxbarashadeeda wadanka aan u imaaday shaqada aan farmaajo ku dhumiyo maya farmaajo hore u socdo walaalkii ana danteeda wadana qarankaas oo midaan noo balana that's it qofka waxa la mucaarada fiiri adduunka dhan waxa la mucaarada laakiin qofka hadda tara muujida cid mucaaradays Mareykan dhexdiisa ma jirto markii oo la siyaasadeed uu imaado doorasho soo dhowda qofka xumaantiisa banaanka la keenaa ay baro qaadka adduunka siyaasadda farmaajo markii doorashada soo dhowda hal bil ka dhimata xusaan uu sameeyay in adeerkiisu gas dadka waa lagu diri karaa laakiin hadda maxaa kaga diray 4 sano meesha fadhiya waa ku damgeeha wala 4 sano meesha fadhiya ama ay ama amaan xilibana soo doortay adiga matid qof wax soo doortay that's it farmaajo taageer haddaad farmaajo nacabtahay oo qabiilku haayana farmaajo waxa cayn kartaa oo fursada aniga cadowga xataa fursadan siina farmaajo waxa taa naci kartaa dabayaaqada kursigiis laakiin hadduu soo fariistay xitaa waa fashilmay haddii farmaajo cusub 4 biri aad ka sheegtid arintaas aan aaminsanay umadeeda mar kale waxa idin leeyahay la ahada aniga waa isdiibay xabsiga waa soo galay umadeeda inaan dhinac ka raaco aan diyaar u ah kaftan sports waa caadi inta raba ku karbaasha macal farmaajo macal Sheekh Shariif macal Heblow waa kaftan taas nidaamsan oo media ka baxay laakiin kan aan aniga leeyahay mediahan Snapchat ha noqoto barteeda Snapchat ama halkan qof inaan ka taabto ama qof inaan wax ku yeelay diyaar u mihi in taariikh laga qorana diyaar u mihi inaan waxaan rabaa mustaqbalka noqdo qof hogaamiye ah oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo dintiisa meel dhergeeya haddii video ilmahayga la tuso bariisaan anagu wallahi farmaajo waa Sheekh Shariif diyaar u mihi kaftan iyo sarbeeb iyo xigmad dadku waa inay ku hadlaan haddaysan ku hadleen ha iska aamusaan that's it farmaajo aniga saacada laga bilaabo taageerihiisa aniga reer diini oo mareexad oo run ah wallahi wax kale kuma qadiida igal dhigtay qadiida qarannimo 4 sano ma dagaalami karo waa isdhiibay ninka rag waa inuu isdhiibo 4 sano hub ma wada karo hatta Ethiopia day baad 4 sano ma dagaalami karo dalkaas kaga baxaa maana
laakiin farmaajo walaalkaya farmaajo video uu safiirsan Facebook ama madaxweyne aanan Facebook lahayn horta ma jiro magacay kale ku soo galaan ana wallahi run idin sheega madaxweynow aniga oo Cabdiqaadir boss ah waxaan ilaahay hortiis balan kala galaa in aan kula shaqeeyo amaantaada ka shaqeeyo marrabo xumaana hay fahmin afar sano xilka marrabo lacag ka marrabo dadnimo ka marrabo waxba ka marrabo sharaf ay soo kordhin oo taliye ciidan haga dhigin hore u soco laakiin waxaan ka codsanaa social media wax ka socdo farmaajo inaadan waxba ka soo qaadin inaadan qiimeenin hore uga soco social media bariw hadda istaabka koowaad waa caay hawiye taaro istaabka labaad ma hayso soo duubay wajiga waay istaabka saddexaad uu iska dagay Umar Shoodal iska koray sadaqseega waa saas ana ku fahamsan dadka farmaajo taliyaashiiso arintan gabka dhah waxba qiimaha siina qofku waa daala energy u leeyahay ma fahanteen arin ma kala ku shideena dadka hadda fanaaniin iyo filmaan kala shideena ka dag arintan oo qabiilka laga dago 1400 qofood ayaa live idaawanay sharafay tahay arintan qabiilka 1400 oo qofood hawi daarood idiri isaaqi qabiil ba isku jirtay waxay ka codsan lahaa inaad adinka ka bilowdaan 1400 no more qabiil ay waa isdiib marka saddex mar is sheegay ay la toogin aan waa isdiibay anigu waxayga marka horena isdiibitaan ka horna waxay ahaayeen kaftan maldahan because xisbigii damajdiid ayaan markii la rab inuu ku soo laabtay waa xisbi wallahi alazim ilaahay wuxuu barqaati iga yahay ya ama soonkeyga ilaahay ma aqbalaysan qabiil waxa iga yahay xisbiga damajdiid waxa kaliya qaladkeyga wuxuu ahaa xisbiga damajdiid ayaan taageerahay oo nin hogaamiye cideeda ah uu ahaa ha u fiirin saas xisbiga damajdiid iska rab aniga bas that's it ما واي حزب قال ما له واسك حناق سنان كراني حزب قد بجديد اسكربي والله ناس قبيل كربي بيكوز سياسه دوده لا دحسنا انيga بيكوز دو قبيل wax aan ku rabay حسن شيخ $1 oo leey waligii markay say ugu jeclaanaan qabiil markaan رئيس الوزراء arrinta رئيس الوزراء ana farmaajo waa daawanayo saay ana ogeey رئيس الوزراء arrinteedana si fiican uga fiirso waa ninka sharaftaada iyo sharaf daradaada u horseedi lahaa shacabkan labadaba miyaarada iska dhax arki leed waa رئيس الوزراء haddii ra'iisul wasaaraha ka xumaado nabaday ra'iisul wasaaraha hadduu ka xumaado nabaday dadkiina walaalaha ee iska dhaadhacshay ee farmaajo ciidan shisheeyo saaraan ciidan shisheey dalkaana ku tiirsan run ma rabtiin yani idinka inay amaan ma askartiin farmaajo ciidan shisheeye cidna u sheegin carab farmaajo waa ku salaam cid Umar Shoodal saaxiibkii waa ku salaam ciidan shisheeye dalkaana ku tiirsan laga marmaan waay hadda ka hor nin suufi ah wuxuu dhigi jiray Allah aniga cirka haya markaas dadka inta fikireen maalin waa iska aamini jiray waxay dhaheen nin hebel suufi cirku dadka u haya markaas ay kuwa aqli loo aqal u saaxiib waxay dhaheen cirka ha u haaye isaga yaa muxuu ku tiirsan yahay isaga maxaa haya cirku uu haya isaga hoos maxaa ka haya ileen ciri dul qof islaag adduunka ma jirtee dul ma ku taagna qofka hadduu cir haayo dulku ma taagna maxaa haya la isaga marka haddii farmaajo uu dhaho aniga cirka haya oo Ethiopia iyo Kenya iska dira isaga maxaa hayn doono maxaa isaga uu ku tiirsanaan doona taas waa su'aasha dadka ay aqliyan isweydiin doonaan that's it marka intaas waa ciidanka shisheeye ha iska joogaan ciidan shisheeye wadanka nabadan ku haysanaa ha iska joogaan maalinta ciidan shisheeye uu ka baxay ma taqaana adiga muujeed maalinta ciidan shisheeye ka baxay wax waayo maalinta adiga shacabkii ma ciidan shisheeye baxay inta mareexaan iyo habar gidri abgaal isku cayna aqligiina ma shaqeynaayo ma adiga ciidan shisheeye dadkii shacabku mid ah markay arkaan iyagoo xabad lagu ridin airportka iyo dekedda ka wada dhoofayaan wallahi billahi tallahi ya qudha dalkeena gumeysiga ingiriiska iyo talyaaniga ma uga baxba taqaana qabiil ma uga bax maalinta midownay gumeysiga ku dhaafaa asig gumeysiga waa naga aragti dheeriyin waa fiirinaya dadkan see wax u rabaan dadkan wali qabiil iyo arintooda ku jiro waa iska dhax fadhinayna lagu leeyahay inta reer diini iyo waxaasna isku haystaan aan iska dhex joogno laakiin maalinta hal qof noqdaan war dadkan shacabka hadday midoobaan Erdogan waa aragtay Erdogan yaa ka taag Afrikaantan iska dhaaf afar xabadaankii wadatay Erdogan militariga Turkiga dhan shacabkiisa korka ka fuulay hadda afgami dambe ma lagu tushanay dadka afgamiga waday maxay ku fikirayaan shacabka Turkiga ayaa saan ah ma sameyn karaan marka that's it fiir horta qorshe kasto cadow uu wato haddii shacabka lagu fiirsha shacabka hadday soconayaan waa la wadaamo ma faham wax qabiil la meeshan kama jirto taariikh dib u laabta siyaad bara dadkii ka carreeyay bariiska reer Puntland ay ahaayeen oo nidaamka siyaad bar u cuntami waayay qabiil ma jira marka meeshaas kadib waa hawiyaha gadaal waa dadka ma fahamsana dhagaxii ugu horeeyay meelada oo Mareyxan yaa ku tuuray ma jartana ku tuuray marraba inaan ku fogaado 1600 qofood sharaf aan leedihiin ciziya leedihiin karaama leedihiin ilaahay inuu idin karaamay waxa idin kugu duceynaa inaad qarankan horay u jiidaan
idinkaa horseed noqon kara videogaasne kii saqiirka xataa oo banaanada jiif waa la wadaagi kartaa waana mahadsan tahay quraac wanaagsan caafimaad allah idin siiyo cumar shooli waa ku salaam saaxiibkay hadda sanadka dambe waxaa soo wadaa fiiri waxaa maqli jiray neymar sanadka dambe muxuu soo wadaa messi muxuu soo wadaa cumar shooli sanadka dambe maxaa soo wadaa qoftee soo wadaa adi anaa qof garabsaar waa ka tuuray waa kula kaftama brother وانا بسلامة صاحبكي والدنيا تاعو waxaan ka hadlaan kuma arkine qeer iyo qeerad idin dhaafay baahiya hees canjeera dubnaa laakiin ma aaminaysiina dub aqaan sharaf leeyahay thank you very much dardaarankaas aan kaga tagay hadaad umad xalaal tihiin oo umad wax garad tihiin oo dadnimo leedihiin go'aanka aan qaatay intii jirneed na ha qaadato caafimaad aan ku wada soconno qaranku mid ha ahaado dawladdu mid ha ahaato dadku mid ha ahaadaan diintuna sida ilaahay quraanku sheegay waa mid iyadana aan faafino diinta ma ogolo oo dhaqanka ma ogolo oo dadnimada ma ogolo oo dareenka ma ogolo inaan dawlad ka hormaan kaftan qofka midna waa jirtaa boos saas la dhahay shalay Cabdiqaadir boos saas ama laga hayaa ina dhahdina ma rabi aniga farmaajo wala kaftami karaa si sharaf leh muwaadina ahay waa dhaliil karaa waa amaani karaa ha ila yaabin hadaa dhaliil laakiin hadaa ahayo waa dambi hadaa qabiilkiisa wax ka sheegay waa dambi diyaarna umuhi because waxaan aaminsanahay inaan ahay shakhsi 2 daqiiqo kadib dhimanaya ayaan aaminsanahay inaan ahay marka inaan qabiil qof ku naco ama aan ku taageero waxba iima soo kordhinayso haddii qabiil jacayl kugu jirto aniga oo abgaal ah oo runta ku sheegayay sheekh shariif iyo xasan sheekh weligood hal yuurkooda nin iga afdheer abgaal ma qabaan wallahi inaanan cunin aynan dhiinsan sameey wixii oo xoog ku qaadana ma laakiin waxay garteen ma jiro qabiil jacaylaysi ma jirto taasaan idin sheegayaa haddii madaxtinimo aad qabsataan nin mareexaan oo farmaajo lacag u qaybinayo mareexaan ma xalla ma jiraan war qabiil qofkaas dantiisu fiirsadaa qofka ugu fiican dantiisa markuu fiirsado wuxuu fiirsadaa danta qaranka qof qabiil fiirin karo ama qof qabiil deeqsin karo farmaajo mareexaan badoo telefoonka qaban be ilaahay wajigiisa ku dhaa wallahi sida xasan sheekh iyo sheekh shariif uu la mid yahay dabcan daadseed marka qof qabiil oo jeclaanaya ma jirto war cabdullaahi yuusuf fiiri intuusan dhiman ka hor allah u naxariistay yemen oo isku joog majaataanka dhan uu nacay qof qabiil rabo qabiil meel ku geyn kara mala laakiin dambi cadaab qabri fool xumo taariikh xumo bag cusub gashid leh busna laga dhaxlaaya waa lagu qoray waxa kugu fil umad marka loo sheego war hebel ka war Cabdiqaadir boos warkaas qabiilisto adduunka sharaftaada maanta si dhamatay umada u dhaxeeya hadad aaminaynaha inaan umada u dhaxeeyane oo aaminsanta inaad qabiil ahna mareexaan reer diiniya warkaas ma ku deeqay warkaas mid deeq mareexaan reer diiniya ahay oo wallahi كس أبجالكم ما تحترم واسع أرك واحد تاعي واحد لا يقصي ملا ده إدي ده وحلا ربنا أفر سنة الناس كسبتان سير شرف له أو بجاد له أو قيمة له تلا ده رئيس الوزراء هاي جالسيان خال وذنا ده رئيس الوزراء مدحوينا عن ده هاي جالسيان مدحوينه إنه كيف فكروا رئيس الوزراء إنه سكوت جعلان حزب خاص قبيل خاص إنه كوت جعلان وإن رئيس الوزراء أركت فوق ولا إمادة رئيس الوزراء سجى أركي وحقو يهلا إمادة هدي فرماجو because فيري ما كان رئيس الوزراء حق صار وحيتها مدحوينها يعني للسرن مدحوين كرسي اسكفر يا مدحوين سيدي سوى أستان تقرن كلا واي وهو ما خبطه لكن رئيس الوزراء وحو صوم مقعبة وزير السوشيال ميديا سجى نجح حركة السوشيال ميديا وزير عافمات سجى عافمات كسينكر إلهي كسكو وزير كتعليم سجى وحبرش بيجي بكرة فرماج مسؤول فرا كل تعذيب ما فرا يا فرماج حكومة دا أيا وحسميسا حدي رئيس الوزراء هجاك سين هاي حكومة دا وهجاك سا sida loo dhaho hadii hogaanka dadku wanaagsan yahay dadku way hagaagayaan xukuumadda hadii wanaagsan tahay dadka farmaajo faa'iidadiisu waxa arkaysiin markuu xukuumad wanaagsan la imaado ma fahanteen wasiirka awqaafta diinta imaana wala umar shul naag kala tamaliis kar wallahi marka waxaan ka wada example hadii xukuumaddu tahay xukuumad wanaagsan faa'iidadeeda dhaxal ba u heli karnaa hadii xukuumaddu xun tahana hasugin in madaxweyne iyo dawlad toban qurux badnaato حكومة دليرة يريرة أشيء جاية إيه كهام السؤال كجواب واكي جواب ديارة واي سودا أنت أنا بحين قراء بايا إنسان إيه كهام هذا كسوجا سؤال إيه سقطت أنت قريسا وقت دار أبنيهم موبايل كنيهم مركا حكومة دا حدي وناكسناتو دولة دولة هيك سنانسا حكومة دا فرماجو إلى هي هرتي السمانتو وقت صنايع قف ودنمديس يدينتيس دبعيس يقان حلا إما هذا فرماجو سي فرما إكيام سودا سؤال لها سقرن وكو جدا عمر شو قصر كيسو جدا مركا فرماجو عيبتا وحا أستركر إلهي
كاسو كره حكومة شرف له شعب مركز ولا بوجين كرا حكومة هن على إيمان رئيس الوزراء صوص عورة إسكان قضب مان الضب عن كقبل دونا إلا طبعا رئيس الوزراء صوبا نجد دونا قف كستو يودل كو قبتي يوحو سمعي يوحو كاستاهلنا وأنا الشيء يعني عيد عن كبقاي ملا قبل كورة بهالنقطة دي مد يقول طلعوا يا عتا كم تقول كي ما آمن يزيل لك ساسو قبتي إسكف فيرش عدل يعني كم تقول كي ما ساسو قبتي لأن سندك شكل سندك إنكستو أيام تنا كلها وسلام صاحب ومدان بدحوينه عينيسو محل هذا أديك أنا هذا official وني وكان لك هما ومدة مدحوينه عايز وأودي ولي بسيدة سيتا أودي بيش ده هوية سيتا أودي كوا أبجال سيتا أودي كوا مريحان مركز صخري هوي والله هذي هدي فرماجة وحلا الشيء أديك إسكو هيسو إن تقف موادن وعالية حك الجبن إن تقدم قتل أو فيديو صوت دوبتد وهي دلين كرتا إن كو فريندز هوية كلها iyagana waxa ku dhaqaaqday inay ku dhaqaaqaan taasna maxaa laga dhaxli karaa dog xun oo diiwaanka noo gala gabdhihi ma noqon oo ilaa soo xiriray aniga fiidiyooga ma soo duubalayeen waxa ugu kalifay naaga hawiye caynaysa dhilasaan ah ma saas ma noqonin anaga ragaanay yaan dadkan u jeedo Facebook inaga u dayanaya hadaa xumaano dhalinyarada yaryar ee 19 jirada waa xumaanaya please intaasa idin sheega walaalahayo anoo shaah soo cabin canjeero dubanin waxba sameeynin aan waxaan jeclaystay bidida iga socdo wallahi waxaan jeclaystay xal waxa la seexan waay ina idin la wadaago anigu wixii uurkaas ku jiro waa soo hadal qaadaya waana ka dhawaajinaya laakiin wixii qoraala iyo hadalkayga isku mid ma qoraal waa baashaal waa joke intii joke taqaan okay wixii jirana qoraal khalad u fasirna qoraal sidii sabab waxa ma soo qorin maanta dadka gacmaha lagu kiciyaa laakiin wixii video ah waa inay noqdaan maadaama ay diiwaan galayaan wax wanaagsan oo ummadana wax u tiri kara إلهي وحن كبر يا صلاة صبح ويسدد عيد أوراني ما تسند برادر أديك هذا official متى هاي أو تاجر توس تاجر توس إيه هم صاحب كموادنا تاي أديك عيال سويدن جو هوي دارو سوجرو أديك أنا كنا نعسير قرن ماذا وحيتها we are generation and I support عمر شوري مع زوجتي I support you that on post نو إنجليز كيف عم باقي عمر شوري وقت تاجر سنة أديك وحن كل سوق وزير كأوقافتي دينت برادر كذا ما حكيته ما هذه يا برادر أنت سعيد الشيء ولا ليال وانا ما سنتي وقتي قالق انتان او دد اني اونلاين ايتانا اني قيمه شرفه ايتاي waxay igu sii dhiirigelinaysaa in aan noqdo qof lagu dayan karo qof dhalinyarada aniga dad iga dambeeya dhalinyaro ah oo 19 jir oo Facebook joogo aad u jeclaa in walaal ma rabo in axmaan iga dayataan anoo idinka weyn waxa sameeyay oo wanaag ah idinkoo yar waxaas ina ku fikri jira laga yaabo laakiin maanta markii la weynaado wanaaga wuxuu yahay flow mino markaas ogaan kartaa saasan ka raba Soomaaliyeey dad muslimna nahay cadaabna wuu sugaya daarood mareexan malagada madamna wareysanaay ma ahan hawi wax malagna wareysanaay ma ahan daaqad la furaay ee jannada laga siin lahaana mid gada ka imaaday iyo mid ceelar ka imaaday labadaba laga ma furaaye ilaahi xaqiisa mid jirto lagaaga furaa hadaa adoo qabiil la jir cawd dhimataylaan yaa ku ixtiraamay oo hebel geesi oo qabiilista lagu dhahay mugdo laakiin hadaa cawd dhimatad oo muwaadinta wax lagu leeyahay أرهيبل دلكو جعلا بدكو جعلا من دمدو جعلا ورا كهرة أفرتم ويل أيضا كهرة اللي بتاع مركب مواد النمو مركب كل ما تيجي ود النمو والله وحي لم تاعي ود النمو مركب كل ما تيجي كن أفر بقول أو ويل أو هلية أو ويل جرنين أو عفمات خبا أي لم تاعي because نكست ونكس مي فيري إن آدم عبد الله عثمان إيو سيد محمد عبد الله حسن إيو أحمد قري إيو محي تاريخ يقول وهسا إلي أهاين رجب محي وهسا تاريخ بليونس ويل أيضا على عمل الله شكايا ما ويلشة مهمة ما لكن هذا كفي عنه وعلى مديا عرور فافتوى أو قرح بدن أو وناق قال ما نقول كل شيء عندك عرور تودنا هذا نيجي سمعوا دبلان من دلين تل كان إذا نمدان أمانت كفانينه ينا مرسو استعمل صومالي فيري شرفت هذا هيك جالسين تفيري وحلو ما ديره كم أمريكا كم سعودي أنا صومالي بات سام عد ندير واحد ندير مري لكن أنا قاعد أخرجوا فني مرة بينا كل هذا هذا كي بتو وفود حرارة سلفت كيسي وانا إذا سلامة صاحبي thank you very much for your time